kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka galka wararka qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah al-shabaab oo dib u qabsatay deegaano horey looga saaray iyo boqolaal ka mid a ciidamada dalka Itoobiya oo kasoo gudbay xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo muddo kordhin loo sameeyay akhbaraadka dhinaca dibadda ee warkaan idinku haynana waxaa ka mid ah militariga dalkaasi Burkina Faso oo xilka ka turay hogaamiyihii dalkaasi. qodobadaas iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaad ku dhageysan doontaan warka galka wararka. fadlan daawada haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe noo saar, haddii kalena barnaamijka noo sii shargare si uu dad badan u gaaro. boqolaal ka mid ah ciidamada dalkaasi Itoobiya ayaa kasoo gudbay xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya, gaar ahaan degmada Doolow ee gobolka Gedo, kuwaasi oo yoolkoodu yahay qaadida howlgallo ka dhan ah al-shabaab. gudoomiyaha degmada Doolow ayaa soo dhaweeyay ciidanka Itoobiya sida ay warbaahinta maxalliga ah ay qorayso, kadib markii maalmihii la soo dhaafay ay soo baxeen macluumaad xaqiijinaya in al-shabaab ay dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan gudaha dalka. Itoobiya ayaa dhawaan sheegtay in ay la dagaalamayso kooxda al-shabaab oo ay sheegtay in ay gacan saar ay leeyihiin kooxo kale oo argagixiso ah oo kasoo horjeeda ammaanka dalkaasi Itoobiya. wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in al-shabaab ay dib u qabsadeen deegaano ka tirsan gobolkaasi oo dhawaan laga saaray. deegaanada ay dib ula wareegeen ayaa waxaa ka mid ah magaalada Moqokori oo u dhow xadka gobolkaasi uu la wadaago labada gobol ee Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud. dhinaca kale waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Muqdisho lagu aaso Allaha u naxariistee taliyihii da'da yaraa ee shalayto ku dhintay qarax ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho Farxaan Qaroole. golaha gurtida Somaliland ayaa maanta muddo kordhin hor leh u sameeyay madaxweynaha maamulka Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi kadib kulan xasaasi ah oo ay maanta ay ku yeesheen xarunta ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa. golaha ayaa 2 sano oo dheeriya ugu daray madaxweynaha Somaliland iyo xukuumaddiisa kadib codayn gacantaag ah oo ka dhacday xarunta golaha gurtida ee Somaliland. sidoo kale golaha gurtida Somaliland ayaa iyaguna ku darsaday muddo xiloodkoodii 5 sano oo dheeri ah, waxaana golahu uu yahay kii ugu horeeyay mana jiro isbedel lagu sameeyay tan iyo markii la dhisay golaha gurtida Somaliland. markastana waxaa loo kordhiyaa muddo xileedka xilhaynta. kulankan oo aad isha loogu hayay ayaa markii ugu horeysay la diiday in wariyaasha ay gudaha u galaan, balse dood dheer kadib ayaa loo ogolaaday waxaana lagu dhawaaqay muddo kororsi. tallaabadan ay qaadeen golaha gurtida ayaa ahayd mid la filayay, waxayna ku soo aaday xilli toddobaadkii hore guddiga doorashada Somaliland oo ku dhawaaqay inuusan xilligan ku qaban karin doorasho uuna u baahan yahay ugu yaraan ilaa 9 bilood oo dheeraada. lama oga sida ay noqon doonto falcelinta xisbiyada mucaaradka oo si weyn uga soo horjeeday muddo kororsiga, kuwaasi oo horey dibadbaxyo uga dhigay Somaliland. si kastaba doorashada guud ee Somaliland ayaa ku astaysan 13 bisha November, balse Muuse Biixi ayaa ku darsaday 2 sano, taas oo ka dhigaysa muddo xileedkiisa 7 sannadood oo xiriir ah. saraakiil ka tirsan militariga dalkaasi Burkina Faso ayaa telefishinka dowladda kaga dhawaaqay in xilka laga tuuray hogaamiyihii militariga ee dalkaasi. sarkaal oo hadlay militariga oo lagu magacaabo Ibrahim ayaa sheegay in hogaamiyaha militariga uu ku guuldareystay in uu wax ka qabto dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxaha islaamiyiinta ee ka howlgala dalkaasi, sidaa darteedna ay xilka ka tuureen. waxa uu shaaciyay in la xiray xuduudaha iyo in la hakiyay dhammaan dhaqdhaqaaqyada xisbiyada siyaasadda. janaalka laga tuuray talada dalkaasi ee Burkina Faso ayaa bishii January afgambiyay dowladii rayidka ahayd ee la soo doortay, isagoo oo xilligaasi ku andacoonayay in dowladdu ay ku guuldareysatay ka hortagga kooxaha islaamiyiinta ah. balse hogaamiyaha militariga ee haatan la afgambiyay ayaa awoodi waayay in uu wax ka qabto colaadda dalkaasi ka socota. isniintii waxaa weerar lagu dilay 11 askari oo saarnaa kolonyo baabuur ah oo maraya waqooyiga dalkaasi Burkina Faso. jimcihii ayaa waxaa loogu baaqay shacabka inay isdejiyaan kadib markii rasaas laga maqlay qaybo ka mid ah caasimadda Burkina Faso. in ka badan 20 ka mid ah militariga oo wajigooda soo dabooshay ayaa saacado kadib ka soo muuqday telefishinka qaranka. daawadayaal warkii aad kala socoteen channelka galka wararka waa nagay taas. fadlan daawada haddii aad ku cusub tahay channelka noo subscribe garee, haddii aad horey noola joogteen noo sii share garee si uu dad badan u gaaro. mahadsanidin.